kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayno arrimaha amniga iyo xaaladda nabadgelyo ee dalka Soomaaliya. barnaamijkan oo taxanaha isla markaana intiisa badan aynu kaga hadlaynay arrimaha amniga. haddaba qaybta barnaamijka xilligan waxaa marti igu ah afhayeenka wasaaradda amniga. waxaan ka bilaabayaa dhinacaasan ka bilaabaya Cabdicasiis Cali Xildhibaan iyo weliba sidoo kale waxaa marti igu ah Faadumo oo ah gaashaanle sare waa Faadumo Xasan Maxamed Neero oo ayana ka tirsan ciidamada booliiska isla markaana xiriirka bulshada booliiska u qaabilsan iyo weliba sidoo kale waxaa marti igu ah oo barnaamijka igala qayb galaya Cabdullaahi Faarax agaasimaha arrimaha bulshada ee wasaaradda amniga. sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qayb qaadanaya dhalinyaro Soomaaliyeed oo jaamacadaha ka baxay wax bartay aqoon-yahana iyo weliba kuwa iminka jaamacadaha dhiganaya. waxaynu ka hadlaynaa doorka amniga dalka, balse waxaan jeclaan lahaa marka hore in aan soo dhaweeyo martida barnaamijka igala qayb galaysa. intaas kadib waxaan jeclaan lahaa inaan barnaamijkeena gudagalno. marka hore waxaan jeclaan lahaa inaan su-aal Cabdicasiis aan ka bilaabo, waana su-aal aan qaybiyo oo ku aadan amniga guud ee dalka Soomaaliya iyo maanta meesha uu marayo. afhayeen haye marka hore. bismillahi raxmaani raxiim. waxaan jecelahay guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed ee adduunka daafihiisa kala jooga anigoo ku hadlaya magaca laamaha amniga ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ahna la taliyaha wasiirka wasaaradda amniga, afhayeenka wasaaradda amniga sida aad sheegtay. waxaan jecelahay inaan shacbiga Soomaaliyeed ugu bishaareeyo in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo laamaheeda amnigu ay ku dadaalayaan sidii hanaan nabadgelyo oo xasiloon Jamhuuriyadda Soomaaliya uga hana qaadi lahaa. waxaad garanaysaan dadka Soomaaliyeed inay halgan u soo galeen wixii hadda ka horreeyay sidii ay ugu xoroobi lahaayeen gumaystayaashii qaybiyey dalalka Afrika. waxaad la socotaan maanta inay mar kale u halgamayaan sidii ay uga xoroobi lahaayeen kooxaha duulaanka ku ah qarannimada iyo madaxbannaanida dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya ee maleeshiyada Al-Shabaab ee qorgooyada la daba taagan shacbiga Soomaaliyeed. waxaad garanaysaan in ciidamadeena oo ka kooban 4 talis iyo ciidamada AMISOM ee gurmadka ugu yimid Soomaaliya in ay dagaal kula jiraan maleeshiyadaas iyada ah goobo fara badan oo dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya ka mid ahna ay ka xoreeyeen. dhowaan weerarkii xubno ka tirsan laamaha warbaahinta ay marqaatiyada ka ahaayeen ama aan ku geynay goobihii ay ku yaaleen laamihii ay u isticmaalayeen propagandada si ay shacbiga Soomaaliyeed jahwareer ugu ridaan in aan burburinay, sidoo kalena aan gaadiid kuwa dagaalka ah ka gubnay annaga oo gacan ka helayna ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya. sidoo kale waxaan shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan ugu bishaareynaya in maalmahoodii ay tageen maleeshiyada Al-Shabaab, waqtiguna uu dhow yahay, guushuna ay dhowdahay. taariikhda ayaa xusi doonta cid kasta oo ku geeriyoota u halganka hanaan dowladnimo oo xasiloon oo ka hana qaada dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya. waxaan idinla wadaagaynaa xanuunadii isbiirsaday ee dhacdooyinkii dhinaca taariikhda galay ee ka dhacay magaalada Muqdisho. ha ugu dhib badnaadeen dhacdadii 14 bishii Oktoobar ee ay shacbiga Soomaaliyeed qulubtooda ku midoobeen sidii ay isaga qaban lahaayeen burcadda duulaanka ku ah qarannimada iyo madaxbannaanida dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya. waxaan annaga oo wakiil ka ah shacbiga Soomaaliyeed, wakaaladna ka haysana dowladda federaalka ee Soomaaliya, shacbiga Soomaaliyeed ugu bishaareynayna maalmuhu waa dhow yihiin. waxaan dhowr jeer ugu baaqnay in ay ka qayb galaan halganka sidii dalka looga xoreyn lahaa kooxda ama maleeshiyada duulaanka ku ah qarannimada iyo madaxbannaanida dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya. waxaad garanaysaan tan iyo intii isbedelkii dhinaca taariikheed ee ka dhacay Jamhuuriyadda Soomaaliya 8 bishii February sanadkii tagay ee 2017 in ciidamadeenu ay banaanka u taagan yihiin duurkan ugu jiraan sidii ay u xasilin lahaayeen ammaanka guud ee Soomaaliya marka lagu daro magaalada Muqdisho oo ah xarunta ama caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya. Fatah Cabdicasiis waa santahay. waxaan jeclaan lahaa gaashaanle sare Faadumo Neero nala joogta oo ayana booliiska qaybta xiriirka bulshada u qaabilsan. ka waran wada shaqaynta ciidamada booliiska ah iyo weliba sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada
si amniga loo adkeeyo ka waran bal wada shaqaynta ka dhexeysa booliiska iyo qaybaha bulshada. bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan bahweynta Soomaaliyeed meel walba ay joogto horta waa idin salaamay galab wanaagsan midda kaleeto ciidanka booliiska 24 saac wuxuu u taagan yahay oo diyaar u yahay inuu bulshadiisa u shaqeeyo naf iyo maalna inuu ilaaliyo wax walba oo ma aragtay booliiska soo food saaro oo shaqo ah diyaar u yihiin ma ayaga shaqeeya meel walba ayaga taagan meel walba ayaga ka shaqeeya ha ahaado degmo ha ahaato tuulo ha ahaato xaafad inta ka dhaxle booliiskuna wuxuu shaqada diyaar ugu yahay inuu ilaaliyo nafta iyo maalka qofka bini'aadamka ah midda kaleeto waxa waaye anigu waxaan la shaqeeyaa waxaan ahay xafiiska waxa hoggaanka xiriirka booliiska iyo bulshada anigu waxaan la shaqeeyaa bulshada 24 saacna dhacdooyinka dhaco dhan magaalada ama daafaha gobolada oo dhan waa la ii soo gudbiyaa aniguna sidaasaan wasaaradda ugu gudbiyaa marka anagu shaqadeena waa shaqo joogto ah oo aanan ahayn maalin labo iyo saacado intaba bulshadana waa la shaqeynaa waxa ila shaqeeya 17 degmo waxa igala shaqeeya dhalinyaro ayaa igala shaqeysa oo ii soo gudbiya dhacdooyinka dhaca iyo wax walba oo jira ama santa Cabdullaahi Faarax Agaasime ka waran la xisaabtan ma jira la xisaabtan laamaha amniga ah lagu sameeyo dadka shaqada amniga shaqada kule iyo guddiga baarlamaanka u qaabilsan amniga haday noqon lahayn guddiga difaaca iyo waliba hay'adaha kale ma jiraan la xisaabtan aad sameysaan ama korjoogteyn aad sameysaan bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waa maasan tahay TV-ga Soomaali Cable iyo madaxdiisa shaqaalihiisa waxaan kula salaamayaa dhammaan Soomaalida meel walba ay joogto inta kadib hadii aan soo laabto su'aashaada runtii wasaaradda amnigu waxaa hoos yimaada hay'ado kala duwan oo ka shaqeeya amniga hay'adaha hoos yimaada wasaaraddu waa la xisaabtantaa waxay ku sameysaa wax la yiraahdo korjoogteen iyo isla xisaabtan waxay muxuu ahaa farta gelisaa halba qaabka shaqada u socoto qaabka ay muxuu ahaa u shaqeeyaan hay'adaha amnigu barnaamijyada laga rabay qaabka u fuliyaan iyo inaysan fulin iyo caqabadaha jira qaabka u fuli waayeen runtii hay'adaha amnigu waxay u adeegaan shacabka Soomaaliyeed waxaa jira guddi ay oo ka kooban muxuu ahaa baarlamaanka qaybtiisa amniga qaabilsan guddiga amniga baarlamaanka waxaa kaloo jira hanta dhowrka oo asna ku leh qayb ku leh muxuu ahaa oversight-ka waxaa kaloo ku leh guddiga xuquuq-insaanka ama hay'adaha xuquuq-insaanka adho oo kula ayaga laftooda kaalin fiican ka qaata waxaa kaloo jira bulshada rayidka ah oo lafteedu ayadana ka qaata qayb kamid ah oversight-ka marka oversight-ka ayaa wuxuu leeyahay laba qayb mid gudaha ah oo booliiska gudihiisa dhexdiisa isku sameeyo sababta booliisku wuxuu leeyahay hoggaanka la yiraahdo hoggaanka kormeerka ayuu leeyahay marka hoggaankaas ayaa ku sameeya oversight gudaha internal oversight ayaa jira external loo jiraa oo hay'adaha aan ku sheegay kamid tahay wasaaradda amniga iyo guddiga amniga baarlamaanka iyo hay'adaha xuquuq-insaanka iyo hanta dhowrka guud iyo xeeladaha iyo xafiisyadaas ayaa runtii ay ku leh oversight marka runtii isla xisaabtan waa jiraa oo haddaan la isla xisaabtin waxba ma hagaagayaan marka wasaaradda amniga runtii doorkeedu aad u muxuu ahaa howl badan ay qabatay waaxyada kala duwan iyo qaybada kala duwan waxay control ku haysaa hay'adaha hoos yimaada hadday aan ahaan lahayd nabadsuud police immigration coast guard iyo dhammaan hay'adaha kale hoos yimaada sidoo kale dhammaan hay'adaha hoos yimaada oo dhan waxaan ku leenahay control joogto ah iyo wada shaqayn joogto ah iyo isla xisaabtan si ayaguna u shaqeeyaan ummadda shaqada laga rabay ugu fuliyaan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan fahamsanta Abdulaziz waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo su'aal kale oo ku aadan 14 Oktoobar magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay qarax dilaa ah oo dad fara badan oo Soomaali ay ku naf waayeen qaraxaasi markii uu dhacay kadib maxaad ka barateen mana jiraan diyaar garow iyo foojignaan aad sameyseen si qarax noocaas oo kale oo uga dhicin magaalada waa mahadsan tahay intaan su'aashaas iyada ka jawaabin waxaan jeclaan lahaa in yar inaan ku biiriyo hadalkii ay mar dhaweyd lahayd walaashay gaashaan la sare Faadumo Neero ciidanka booliska Soomaaliyeed waa ciidamada ugu dhow dhammaan adduunka
marka lagu daro kuwa jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waa saaxiibka ugu dhow ee ay bulsho ku dhaqan adduunkan dushiisa ay la leeyihiin. waxay 24 saac maalintii iyo habeenkii isugu jirta la leeyihiin xiriir aan marna joogsan oo ku saabsan ha ahaado saacad, daqiiqad ama second. waxaad maqlaysaan 24 saac iyaga oo dhacdo kor taagan. marka lagu daro qof Soomaaliyeed oo yaala dariiqyada magaalada Muqdisho, ilmo yar shalay hadday dadka Soomaaliyeed maqli jireen waxbaa la dilay iyo qarax baa dhacay, maanta waxay ciidamada booliska Soomaaliyeed waa u mahad celinaya oo ay nagala joogto walaasheen. aad arkaysaa iyaga oo gargaar u fidinaya ilmo yar oo xaafadahoodii kasoo dhimay, sidii laanta warbaahinta ee jamhuuriyadda Soomaaliya berigii jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya ay jiri jirtay. carruurta marka ay dhumaan waxaa la geyn jiray ama laga baahin jiray idaacadda radio Muqdisho. markiiba waxay helayaan gargaarkii ay uga baahnaayeen. ruuxii dhaawacma ama iskiis xanuun ugu dhaco ee yaalla dariiqyada magaalada Muqdisho, ciidamadeenu waxay siiyaan gurmad. waxaan jecelahay inaan ka sokow dagaalka aan kula jirno maleeshiyada al-shabaab ee duulaanka ku aqranimada iyo madax bannaanida dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya. wax badan ayaa laga bartay weerarkii arxandarrada ahaa ama fulaynimada ahaa ee maleeshiyada al-shabaab 14 bishii Oktoobar sanadkii tagay ay magaalada Muqdisho kusoo qaadeen, ay ku gowraceen ama ay ku dileen boqolaal dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsanin, oo qaarkood ciriiri ay ku ahayd sidii ay u noolaan lahaayeen. waxaan leeyahay waa ka xunnahay dhacdadaas. uma joojinayaan dadka Soomaaliyeed. calanka dalka iyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliyana weligood waa jirayaan. dhacdo noocaas oo kale inay dhacdo sidee ugu hortagi kartaa? waxaan jeclaan lahaa inaan su-aashii aad weydiisay aan uga jawaabo. haddii ciidamadeenu ay ahaan lahaayeen kuwa dayacan ama garabka saartay, qoorta saartay ee jiifan lahaayeen, suurtagal ma noqoteen maanta nabadgelyada ka jirta magaalada Muqdisho iyo guud ahaan inta badan. waxaad garanaysaan weeraradii cirka iyo dhulka, weerarada cirka ee ka soconaya ee lagu hayo maleeshiyada al-shabaab, in ciidamadeenu ay dhinaca lugta dagaal xoogan kula jiraan goobaha ay ku dhumaalaysanayaan ee ku yaalla dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya. waxaad garanaysaan in maanta goob ay ka hadlaan ama shacbiga kala hadlaan inaanay jirin marka laga reebo goobaha ay dhumaalaysiga ku joogaan. taariikhda cabdi maxamed amiin wuxuu sameeyey heestii ahayd taariikhdu dadkay bartaa waxay doraad mareen. taariikhdu dadkay bartaa maxay ahayto ninna ma diido ninna ma doonto runtay dacal ku haysa ayay ahayd heysiis. waxaan jeclaan lahaa wixii dhacay waxaan inkirayna ma aha, waxay ahaayeen xanuun reebay, xanuun aan runtii laga sheekeyn karin. laakiin waxaan shacbiga Soomaaliyeed u xaqiijinaynaa guud ahaan adduunka ku nool iyo kuwa ku nool Soomaaliya guud ahaan iyo magaalada Muqdisho inaanay mar dambe dulqaadka waa naga dhamaaday. shalay haddii ay jiri jirtay in ay intay wax weeraraan, waxaad garanaysaan weerarkaas weerarkii ku xigay ee ka dhacay hotel Naasa Hablood, 3 ka mid ah maleeshiyadii al-shabaab in ay ciidamadeenu gacanta kusoo dhigeen kadib dagaal socday. waa markii ugu horeysay ee ay weerar intay soo qaadaan. wixii ka dambeeyay shacbiga Soomaaliyeed adduunka waa lagu dilaa. xalay ma ahay habeen hore Ingiriiska waxaa ka dhacay magaalada aan deganahay aniga xaafad u dhow oo Camden la yiraahdo in lagu dilay dhalinyaro Soomaali ah. dadku waa dhimanayaan. maxaa jira Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yiri maxamedow innaka mayitu wa innahum mayitun, adigu waa dhimanaysaa iyaguna waa dhimanayaan. annagu nama cabsi gelinayso, cabsi kama qabno inaan shacbiga Soomaaliyeed u adeegno isla markaasna aan dhimanno si ubadkeennu ay u helaan nolol ka doorontan maanta aan haysano. dowladda Soomaaliya waxay dhowr jeer ugu baaqday ilaamaha amniga ugu baaqeen dadka rayidka ah inay qayb ka noqdaan community policing, nabadgelyada inay qayb ka noqdaan. nabadgelyadu waa aasaaska iyo horumarka bulsho ama dad ay gaaraan. suurtagal ma noqonayso in ruuxna uu iska noolaado. dadka Soomaaliyeed mararka qaar waxay ku marmayaan waxyaabo aan meesha ku jirin. ruuxa marka uu bixiyo canshuur ka soo qaad, canshuurta wuxuu ku helayaa waxbarasho, amni buu ku helayaa, waxbarasho ku helayaa, caafimaad ayuu ku helayaa, wuxuu ku helayaa wadan nabadgelyo ay ka jirto oo uu maro. laakiin ruux haddii uu diido oo tuug iyo maleeshiya u ogolaado in uu lacag baad asiyo, soo nasiib darro maaha. waxaan shacbiga Soomaaliyeed ugu baaqaynaa annaga oo wakiilka ah dhammaan laamaha amniga ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya in ay la shaqeeyaan
ciidamadeena la shaqeeyaan. waxaan usoo noqonaynaa tan canshuurtii usoo noqonaynaa iyo wada shaqeynta laamaha amniga iyo booliiska usoo noqonaynaa. waxaan ku siin lahaa su-aal ku aadan gaashaanle Faaduma, marka booliisku ay inta badan ay sameynayaan wacyigelin oo iyagu ay iswacyigelinayaan, ma sameeyaan munaasabado amba tababaro ay dhalinyarada siinayaan oo ay ku barayaan in booliisku ayagoo booliis ahayn ay la shaqeyn karaan, sida community policing oo kale inay ka shaqeyn karaan? wacyigelin noocaas oo kale taliska ciidanka booliiska ma qabtaa intaad og tahay? waa la qabaa, sababtoo ah haddaba waxaa jira 200 oo qof oo dhalinyaro ah inaan seminaar gelinay oo ay mataqaanaa nala shaqeeyaan 17 degmana ka yimaadaan. haddana waxaan diyaar u nahay qolo kaleeto inaan qaadano ayagu, sababtoo ah 200 oo qof waxba kama taraysa magaalada. saa daraadeed haddana 200 oo qof oo kaleeto oo aan wacyigelin iyo soo dhaweyn aan u sameynayno iyo inay la shaqeeyaan booliiska ayaa jira. diyaarna waxaan u nahay meel walba oo shaqo taagan tahay in aan geyno dhalinyaradaas oo ay ka shaqeeyaan wax walbana ay noo soo gudbiyaan. ma jirtaa markii laga soo tago in shaqada booliiska iyo nabad sugidda iyo laamihii amniga loo diro, la xisaabtan korjoogteyn oo aad sameysaan oo aad la xisaabtamaysaan oo aad ogaaneysaan shaqooyinka la qabanayo inay yihiin kuwii loo baahnaa ee wasaaraddu ay igmatay, korjoogteyn noocaas oo kale ma sameysaan? bismillah. hadda beli dhawaa waxaa jiray shirar aan qabanay oo aan isugu yeernay booliiska iyo guddiga amniga baarlamaanka naga saacidayay iyo xafiiska dhowrka iyo xafiiska hay'adaha iyo bulshada rayidka ah iyo hay'adaha xuquuq insaanka u dooda. waxaan ka wada hadlaynay sidii maxaa loo xoojin lahaa ama isla xisaabtanka iyo oversight-ka ku wajahan booliiska. runtii arrintaasi si fiican ayay nooga mara dhashay. welina waxaa socdaa wada hadalkii iyo shirarkii. hawshaas markaa wax badan ay ka tartay dhankii booliiska oo gudahooda laftooda sii sameeyey muxuu ahaa inay sii dardargeliyeen hawsha ay qaban jireen inay sii laabaan. waayo waxay u shaqeeyaan shacabka Soomaaliyeed. booliisku waa saaxiibka shacabka ayaan yidhahdaa, asaa ugu dhow. runtii marka arrintaas meel fiican ayay maraysaa. dhammaan gobollada dalka oo dhan dowlad goboleedyada baa ka socota hawshaas. marka waxaan rajaynaynaa inaan isla xisaabtanno oo aan hay-adaha hoos yimaado o dhan aan hay-ad kasta shaqada ay qabanayso aan kula xisaabtanno, si iyaduna ay shaqada usii laablaabto doorkii laga rabay iyo waxqabadkii laga rabay Soomaalida ay ugu shaqeyso inaan annaga sii xoojino. marka shaqadeena waaba noocaas. wasaaraddu waxay u shaqeysaa boolis aan, laakiin hay-adaha hoos yimaada ayaan runtii ku shaqeynaa. ayagaan dabagalnaa, ayagaan la xisaabtanaa, ayagaan yidhahdaa maxaa qabateen, maxaa idin qabsami waaya, sababta maxay tahay. markastaba runtii waxaan ku haynaa control xoog leh hay-adahan hoos yimaada. marka hawshaas si fiican ay noogu socotaa. waa tahay dhalinyarada barnaamijka igala qayb qaadanaya. barnaamijku waa barnaamijkii amniga oo aynu kaga hadlaynay doorka amniga ee dalka Soomaaliya ayaan kaga hadlaynaa iyo weliba waxyaabihii qabsoomay, maxaa dhiman, maxaa loo baahan yahay, maxaa tala, maxaa tusaale talo aad leedahay, tusaale aad leedahay, su-aal aad leedahay iyo weliba wax walba oo markaasi fikirkaaga ku aadan. waxaa barnaamijka marti noogu ah afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Xildhibaan iyo weliba gaashaanle sare Faaduma Neero oo booliiska u qaabilsan qaybtii xiriirka iyo agaasimihii wasaaradda amniga Cabdullaahi Faarax ayaa marti igu ah oo mar kale aan idin xasuusinaya oo idinku celinayaa. su-aalaha dhalinyaradana weydiinaya waxaan codsanayn ama soo weydiinaya martida inay noqdaan su-aalo kooban, haddii ay jirto tala ay ku daraan, isla markaana ay magacooda ku bilaabaan. wiilkaa ayaa taagan koofid wataaye, bal magacaaga marka hore. talo haddaan siina macnaha waxaa waaye hawsha halkaa kasii wadaan kasii wada. laakiin waxaan rabaa hal su-aal inaan weydiiyo Cabdicasiis Xildhibaan oo ah wuxuu dhahay kacdoonkii ama isbeddelkii yimaaday 8 Febraayo ka bacdi ciidanka waxay sameeyeen inay duurka galaan. macnaha 8 Febraayo ka hor waa ognaa dalka macnaha dowladii kore ee amniga iyo say usugu jireen. ma jirin miyaa ciidan duurka ku jira iyo macnaha ciidan amniga wax ka qabta 8 Febraayo ka bacdi yimaadeen? taas baan weydiin lahaa, halkaasaan uga baxay. hay su-aalaha say aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. waxaan jeclaan lahaa walaalkayno inaan jawaab ka siiyo malaha dhinaca isfahamka ama luuqda ayaa si naga noqotay. waxay ahayd shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan inay halgan ugu jireen tan iyo bilowgii taariikhdooda sidii ay u hanan lahaayeen hanaan nabadgelyo oo xasiloon oo ka hana qaada dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya. sida aad garanaysaan marka ciyaartoydu ay ciyaarayaan
qori isu dhiib wax la yidhaahdaa jirta dowladihii soo maray jamhuuriyadda soomaaliya laga soo bilaabo dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee lagu soo doortay magaalada carte waxay aasaaska u dhigtay dowladnimada maanta la haysto waxaa ku xigtay dowladdii ilaahay ha u naxariistay madaxweynihii ku xigay ee dowladdii federaalka ku-meel gaarka ahayd ee soomaaliya cabdullaahi yuusuf axmed iyaduna sahashay in magaalada muqdisho ay timaado mar kale 17 sanadood kadib dowlad soomaaliyeed madaxtooyadana fadhiisato waxaa ku xigtay dowladdii madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo markii ugu horeysay kadib inqilaabkii military ee ka dhacay dhulka jamhuuriyadda soomaaliya 69kii doorashooyinkii dalka ka dhacay 42 sanadood kadib madaxweynihii ugu horreeyey ee suurtageliyey mar kale in magaalada muqdisho dadka soomaaliyeed wakiiladooda ay ku doortaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ahaa madaxweynihii labaad ee suurtageliyey mar kale in ay doorashooyin ka dhacaan labada doorasho maxay ku kala bedelayeen shacbigu waa weydiin karaan oo midna xalana lagu qabtay midna waa ogtihiin waxaa lagu qabtay muxuu ahaa iskoola bolisia meesha loo yaqaana ama dugsiga tababarka booliska ee generaal kahiya loo yaqaano marka kala duwanaansho waa jirtaa laakiin dowladda hadda ka jirta soomaaliya ma ahan dowlad iyadu keligeed ay ciidamadeeda u dirtay in ay duurka galaan jidadkana istaagaan laakiin dhacdadii taariikhiga ahayd ee xumaha reebtay qulubta shacbiga soomaaliyeedna aysan marna suurtagal ahayn inay ka go-do waxaad ogtihiin in ciidamadeenu 24 saac ay baarayaan taagan yihiin dariiqyada magaalada muqdisho soo gala ama ka baxa iyadaa shahashe qaybna ka ah ammaanka guud ee maanta ka jira magaalada muqdisho waxaan u fahmay inuu leeyahay markii weerarka soobe uu dhacay xanuunka la dareemay miyay ciidamadu duurka galeen mise ka hor ciidamo qorshaysan oo dowladda ayaa jiray waxaan u malaynayaa su-aasha si kale inaa u dhegeysid isagu wuxuu yidhi ma jirin miyaa dowladdan dowlad ka horreysay oo ciidamadoodu ay ku jiraan duurka ay ku jireen soo saas mahay nuux aada u mahadsantaa hore u soco su-aasha xigtaan siinaa haye magacaaga rashiid cabdalla sheekh cali geele oo ka mid ah dhalinyarada wax ka barta jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee gahir intaas kadib waxaan u mahad celinayaa Soomaali Cable TV iyo madaxdeeda iyo shaqaalaheeda iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ka socda wasaaradda amniga iyo booliska iyo saaxiibaday intaas kadib waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto fursadan salaan u gudbiyo ciidamada qaranka oo runtii ah geesiyaal anaga aan ku seexano intaas kadib waxaan rabaa su'aalo kooban inaan weydiiyo aniga u kala saarin hebel laakiin si guud saad ogtihiin waxaa jiray qorshe caasimada la hirgeliyay oo qorshahaas keenay wadooyinka dhan in la xiro wadooyinka dib la xirayna sax waay amaanka waxaa loo arkay xalal loo arkay laakiin dhibaatada ay keentay wali way taagan tahay haddii wax yar tusaale ah ku daro qaraxii soobe ka dhacay ee October bish sanadkii la soo dhaafay wadada jaame ah jiray luuqa soo xiraa xitaa waxaa loo arki karaa haddii wadooyinka furnaa lahaayeen oo kale in gawaaridaas ay wadooyinka luuqa bixi lahaayeen qarax markuu dhacana dad yar oo kooban meesha ay ku soo gaari leeyahay oo looga faa'iideystay wadooyinka xiran awgeed oo meelo kale aan laga bixi karin hal wado la isugu soo haray inuu qarax la kulmo soo waxa waaye jidcadooyinka la xiray waxay sababeen geerida meesha geerida dadka dhintay marka su'aasheedu kooban waxa waaye ma jira qorshe looga baaqsanayo wadooyinka oo la xiro ammaankan lagu soo karo wadooyinka in la furo ammaankan la sugo ma jirta qorshe noocaas ah su'aasha koobaad waaye su'aal labadan jeclaa inaan raacsado anigoo waqtiga beekhaaminaya waxaa jiro sida aan ognahay amsama wadanka joogto oo dad shisheeye waaye ciidan shisheeye nabad ilaalin oo imaadeen haddana waxaa jirta dhacdooyin xanuun badan oo lagala kulmo oo geystaan shacabka Soomaali u geystaan shaqadii oo ammaanka inay sugaan marka ma jirtaa la xisaabtan lagu sameeyo ciidamada Amazon dhibaatada ay shacabka Soomaali u geystaan intay ammaankooda sugi lahaayeen su'aasha labaad su'aasha saddexaad laba su'aal nooga badinin waqtiga oo ciriiri uga ah waxaad marqaatiye ka tihiin cabdirashiid geelle ayuu magaciisu ahaa waxaa jiray in dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo laamaheeda amniga ay soo saareen qorshaha amniga iyo xasilinta guud ee Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ka hor intii uusan dhicin qaraxii 14 bishii October waa jirtaa in dariiqyada magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah ay yaalaan dhagxaan qayb ka ah sidii loo xaqiijin lahaa muxuu ahaa amniga guud ee caasimadda magaalada Muqdisho
shaki kuma jiro in shacbigu ay wax tabanayaan laakiin waxaan galabta annaga oo wakiil ka ah laamaha amniga ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo wasaaradda amniga idinka ballan qaadaynaa inaysan jiri doonin hooyo umuleysa oo dariiqa lagu cadibo ama mari weyda ma dhici doonto ardayda wax ka barata dugsiyada magaalada Muqdisho iyo jaamacadaha ku yaala in ay mar kale cabasho noo keenaan waa gudbinay waa dhageysanay waxaan annagu ma aha su'aalaha aad nagu weydiinaysaan oo kaliya inaan ka jawaabayno stuudiyaasha telefishinada madaxa bannaan ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya laakiin waxaan idin xaqiijinaynaa inaan sidii walaashay ay idin sheegtay gaashaan la sarafaado waneero iyo agaasimuhuba in aan saaxiib dhow bulshada la nahay dhageysano cabashooyinka ay qabaan annagana aan u gudbino madaxda naga sarreysa si wax looga qabto arrintaas iyada aad iyo aad ayaa u mahadsantahay waxaan rabaa inaan siiyo Faadumo gaashaan la sarafaado waneero waxaan ku siinaa hal su'aal oo aan jecel waracsanaysaa meel nigula soo dacwoodo ama nigala soo waco ama xogta nigula sheego asbuul sahan miladii waa leenahay waxa waaye 888 ama 888 meeshaas oo ku taalo xarunta taliska booliiska ay ku dhex taalaa meeshaas ayaa wixii dhibaato oo dhan oo kugu soo tabiya xafiiskayga ayuuna hoos imaadaa 888 kaas markii naloo soo sheego isla markiiba annaga waxaan u gudbinaa gurmad ayaa jira gurmadkaas ayaa u gudbinaa dhibaatada meesha mataqaanaaye jirta xaafadda meesha kulli ayaan u gudbinaa haddii aan raaciyo su-aashii ahayd cabdirashiid cabdalla oo dhinaca Amazon Soomaaliya waa jirtay runtii mamar waa dhacdaa in Amazon inay xoogaa yar xadgudub samayso laakiin wax weyn maaha waa bani aadan shalal iska dhacaa jiraan ka soo baawar qof jiro kale wax iska caadi waaye marka hadii jeer markay arrinta dhacdo ee amniga waa ka daba tagaan arrintaas waa la xaliyaa baawar shilka geystay waa soo qabta raaskada la geeyaa hadduu qof wax gaarsiiyana waa magdhow waa la siiyaa hadduu baawar kala jijibiyana waa loo sameeyaa marka Amazon mar kastaba waa bani aadan shil waa geli karaan laakiin waxaa ogaataan dad shisheeye noo soo gurmada waaye dhiigga ay daadinayaan faham laftiisa dad muxuu ahaa dagaal ay galaan ayagoo annagana difaacayo dhiigga dad laga laayo laga dilaa laftooda dhibaato haysata marka qaar hadday shil baawar uu dhaco kale Amazon ay geysato waa ayadana ma cararaan waa la xaliyaa waa arrintaas waa dawladdu waa ka daba tagtaa waa la xaliyaa marka wax weyn maaha waxaa la yidhaahdaa hilmaam kuma jiro waxay ahayd su-aashaas lafteedu su-aal daba joogtay tii hore ee laamaha amniga iyo xasilinta magaalada Muqdisho qusaysay النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحيري كلكم خداعون وخير خداعون التوابون أذنها قدام واقفان أنتي نقفت وحاول غير بدن كوي كسر نقطة إذا ماذا عطوا هذا القاضي أمسهم معها نبض إلى ليال أو كلية ما أنت والنبض ليال وحيد قال كلسه هرجدان برعدة حلالي ستي ليج شعبك الصوماليات وهالجميسة إن سيدا يديك إذا كقد هذين لهايين وحتين مستقبل كي iyo iftiinkii bulshada Soomaalidu ay ku faani lahayd berito ama xilalka iyo mas'uuliyadaha midda ugu koreysa ilaa tan ugu hooseysa ha ahaadeen ciidamada saraakiil ha ahaadeen siyaasiyiin xildhibaan ha ahaadeen senator ha ahaadeen dadkii hogaamin lahaa dalka idinku inaad tihiin kuwa dagaalka idinku la jira ayay ugu jiraan naftoodana khatar u gelinayaan sida walaalkay uu sheegayna ay dhiiga u bixinayaan waa jiraan waxaan inkirayna maaha in shilal ay ka dhacaan dariiqyada magaalada Muqdisho goobaha gaadiidka ay maraan waxa dhici karta magaalooyinka aan ka imaanay ee ka nabadgelyada ee xasilooni badan guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho in ay shilal ka dhacaan qof waxa iman karta baabuur uu gadaashiisa ka soo baxaya isagoo aan iska fiirinin mid halkan ka yimidna uu haf hore u siiyo marka waa dhacda in ciidamada Amisom hadda ka hor waa dhacday laakiin sida uu walaalkay idin sheegay ama idin xaqiijiyay ciidamadeenu ma aha laamaha amniga dadka wakiilka uga ah ee waxay leeyihiin dad wakiil uga ah oo la xisaabtama wixii gaf ah shacbiga Soomaaliyeed ka tirsanayaan ciidamadoodu marka ay shil galaan kama cararaan markiiba dada ku soo baxa waana la xaliyaa arrintaas iyada ah waa mahadsantiin waqtiga ayaa nahaya su'aalaha saadin sheegay qofku xaq u leeyahay hal su'aasha kale saaxiibka u reeb haddii talo ay jirto su'aal iyo talo si waqtiga aan uga faa'iideysano barnaamijku waxaan kaga hadlaynaa waa saxid waa aragti fiican iyo talo haye yarkaas taagan magacaaga bismillah bismillahir rahmanir rahim magacaygu waa Cabduqaadir Usmaan Nuur waxaan kamid ah ardada
ka qalin jebisay jaamacadaha ku yaal jaamacadaha xamar mid ka mid ah jaamacadda Orso International University faculty-giisa Public Administration waxaan qabaa su'aal iyo talo ugu horreyn magaciisa waxa uu ahaa mahad iskale Allah subxaanahu wa tacaala marka labaad Somali Cable marka saddexaad waxaa salaan diiran halkan marnay agaasimaha fayeenka iyo gaashaanla sare ee Maryama su'aasha aan qabo intaan u gudagalin waxaan rabaa su'aasha inaan u gudagalo marka horeesto waxaan rabaa inaan idin weydiiyo amniga marka laga hadlayo talo haddii la idin siiyo taladaas ma jiraan inaa hore u qaadateen taladaas oo taladii la idin siiyo ma talo oo shaqeysa ma noqotay qofka taliis talo lagu khasaaray miyaa mise talada la idin siiyo waa qaadataan haddii aad qaadataan se talada idin siin doono waxay tahay amniga marka laga hadlayo maalin waxaa jirtay oo aan ku arkay wasaaradda hadda tacliinta sare oo kale boor yar meel yar number ah ku jiro 533 mise 355 number oo lagu soo gudbiyay la dhahay wixii ra'yi aad qabtiin ama talo amniga aad kaga hadlaysaan waxaa jirtay talo aan kusoo dhiibanay aniga dhalinyar badan oo afkaar isku darsatay ilaa haddana ma ku arkin magaciisa in la qaatayna ma u malaynayna so haddii aan talo idin siino taladaas talo aad qaadanaysaa ma tahay mise waa talo meesha isaga dhaqaaqaysaa talada ay dhiibana waxay ahayd si qaastan weliba fikirkeeda aniga lahaa in amniga si lagu xoojin karo waxaa ka mid ah nahnay mise aan kusoo dhiibay mise jaan ugu soo diray xarun walba control ama wad oo magaalka yaalo meel walba laga soo galayo ama control walba degmo walba ay ka soo galayso in la dhigo magaciisii maxaa la bahal controlka baawurta ka dhawaajinayo yacni sheegayo waxaynu qarax wado iyo inuusan qarax wadin kala cadeynayo si ay u yaraato qaraxan faraha badan gawaaridan magaciisii qaraxyada wado si ay u yaraadaan every control ee u noqoto safe so dadkan ee safe u noqdaan thank you very much qaybna Abdicaziz waxaan ku siinaa tan talada horta agaasima waxaan siinaa talada ma qaadatiin talooyinka ka yimaada bulshada ma qaadatiin marka bismillah waa masay Cabdulqaadir suntii su'aal fiican waaye annaga sidana talada waa qaadanaa waxaa jirta wax dhan oo qaabilsan ba arrimaha bulshada marka waxaas waxay leedahay xafiisyo qaabilsan talooyinka ama cabashooyinka wixii cabasha oo shacabka qabo inay usoo gudbiyaan wixii dhaliila usoo gudbiyaan wixii tala ay siiyaan wixii amaanida xataa nagula amaanaya noola soo gudbiyay marka intaba xafiiskaas waa furan yahay wuxuu furan yahay shacabka Soomaaliyeed inay tala nagu siiyaan cabasho nagu soo gudbiyaan hadday qabaan dhaliil sheegaan hadday nagu amaanayaan nagu amaanaan marka xafiiskaas ayaa jira marka waa qaadana diyaar baa u nahay talada in ku shaqeeyno shacabka Soomaaliyeed oo ayna saxaan hadii wax naga qaldan binaadana hadii wixii aad wax qaldan noo sheega adinka shacabka anaga waxaan adeegayaal wax adeegayna waxa waaye waa adinka waa shacabka Soomaaliyeed marka talada noo qaadayna diyaar u nahay waxaan ku celinayaa mar kale waa mahadsan tahay Cabdulqaadir Cusmaan Nuur oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waxna ka barata waxaan rabaa inaan kula wadaago galabta si aan qaatiyo ugu sameeyo hadalkaaga markii hore waxaan hadalkayga ku bilaabay in goob kasta oo annagu ma aha waxa aan ku shaqaynayno in naloo heeso ama nala amaano ma aha waxaan ugu adeegaynaa sidii loo badbaadin lahaa karaamada iyo sharafka shacbiga Soomaaliyeed talooyinka ku aadan wax ka taraya sidii loo sugi lahaa malaha dadka qaar marka aan la hadlayo waxaan idhaahdaa goorta aad dhalatay ma ii sheegi kartaa qaraxyadu waa soo badanayaan qaraxii ugu dambeeyay ee ka dhaca magaalada Muqdisho waxay ahaayeen labadii qarax ee isku xigay 14 bishii Oktoobar iyo 28 bishii Oktoobar ee ka dhacay hotel Nasahablood ee magaalada Muqdisho wixii ka dambeeyay waxaad garanaysaan haddii ciidamadeenu ay iska jiifaan ama aysan qaadanaynin taliyayaashooda ama hogaamiyayaashooda ama wasaaradaha gaarka uga shaqeeya amniga in aan ku guuldaraysan lahayn waa dhici kartaa ciidamo intay dhar soo gashadaan dad ku laaya magaalooyin ku yaala adduunyada dadka isu soo ekeysiiya waxaa la rabaa shacbiga inay noo soo sheegaan cid kasta oo ay tuhmayaan xitaa haddii ay yihiin walaalkood aabahood hooyadood walaalkood la dhashay walaashood la dhalatay aabihiis ama hooyadiis haddii ay tuhmayaan waxaad garanaysaan dagaalkii ka dhacay dalka Rwanda ee musiibada reebay ee in ka badan 1 milyan oo qof ay ku dhinteen in hooyadu ay garatay in ay walaashu gabadhii inay garatay inay walaalkeed inuu qayb ka aha u sheegto
dadka maxkamadda cadaaladda ah loo doondoonayay inay u sheegto ninkii saygeeda inuu qeyb ka ahaa shidada sii soconaysa ee ka dhacday dalkaas. dadku maanta waxay haystaan nolol ka qiimo badan taad ogtihiin ay soo mareen ee xanuunka reebtay webi ka samaysan biyo ayaa ka jiray dalka la yiraahdo Rwanda. annagu ma ogolaanayno ismana dhiibayno ilaa dhibicda ugu dambeysa ee dhiigga korkeena ku jira ay ka daadanaysana waxaan u halgamaynaa sidii idinkuna aad nabad u heli lahaydeen shacbiga Soomaaliyeedna ay u guuleysan lahaayeen. arrintaas waa ku celinayaa mar kale haddii ay jiraan wax tala ah iyo dhaliil ah oo aad u haysaan laamaha aan ka soconno ee amniga wasaaradaan leenahay. dhalinyarada meesha fadhida cid aan aqoonin goobta ay ku taallaa ma jirto. sanduuqyada meelaha la dhigay ha noogu rido hadduusan awoodi karin in wasaaradda keeno. haddii kalena waxaad haysataan emailada wasaaradda u qaabilsan xiriirka dadweynaha iyagaad noogu soo diri kartaan. waana mahadsantihiin. gaashaanle sare Faadumo waxaan ku weydiinayaa su'aal kale ku aadan muddooyinka ugu dambeeyay taliska ciidanka booliiska wuxuu qaadanayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo jaamacada ka baxay. tan iyo markii qoritaanka la bilaabay dhalinyaradaas maxaa faa'iido oo dhanka amniga laga helay? waxyaabo badanaa laga helay sababtoo ah qofka hadduu wax yaqaano wuxuu ka qiimo badan yahay qofka aan waxba aqoonin. waxawaaye saldhigyada ayaan geynay baarayaal yihiin waxyaabo badan ay qabtaan wixii loo baahdo waxay galaan kormeerada oo ay shaqeeyaan wax walba oo loo baahdo oo xagga shaqooyinka amniga ah oo dhan ayagaa noo qaabilsan. dhalinyarada runtii wax baratay waa mustaqbalka Soomaaliyeed maadaama saraakiishii hore booliiska ay da'dooda sii socoto waa qasab in la helo jiil kale cusub oo dhalinyaro oo wax soo bartay inay bedelaan dadkii hore. marka ayagana fursad si maadaama boqolkiiba 35 iyo Soomaalidu ay tahay dhalinyaro in kaalin ay ka qaataan. hadda waxaad ogtihiin mar dhow taliyaasha saldhigyada gobolka Banaadir qaar kamid ah waxaa loo dhiibay dhalinyaro soo baratay oo jaamiciya ayaa taliya looga dhigay. taas marka waxay fursad siinaysaa dhalinyaradu inay kusoo laabtaan doorkii shaqada iyo dowladda inay qayb ka qaataan oo ay horumariyaan oo cilmiga ay soo bartaan uga faa'iideeyaan xafiisyada dowladda. Faahfaahinta yarkaasan siinaya su'aal siinaya iyo haddii aragtiyo aragtay talo u hayo magacaaga marka hore. bismillahi rahmaani rahiim. magacaygu waa Cusmaan Mukhtaar Daahir. ugu horreyntii waxaan salaamayaa telefishinka caalamiga ee Somali Cable iyo madaxda martisharafta ka soo qayb gashay barnaamijkan. Cusmaan Mukhtaar Daahir. waxaan weydiin horta ugu horreystii waxaa weeye maanta markaan halkan kolkaan imid iyo markii dambe waxaan arkay kala duwan yihiin. runaantii wax aad loogu farxayd in aan arko madaxda qaranka Cabdicasiis Xildhibaan oo bus badan ku taalo macnaha inuu shaqo badan soo qabtay macnaha qof walba dareemay maanta macnaha ma aaminsanayn runaantii qof madaxa aniga maanta markaan jidka lugeynayo bus inta laga qof macnaha madaxa inuu sas u shaqeynayo. laakiin markaan halkan imid dareenkaygu macnaha dareen ka duwan aan qaaday waan amaanayaa dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay dadka wax qabta amaanaan ay taageeraan dadka qofku markuu wax qabto la yiraahdo waad mahadsan tahay horsi wad. halka su'aalan weydiinaa waxay tahay ma jirtaa shaqo ka dhaxaysa waxaan ognahay in maamul goboleedyadu leeyihiin ayagana ciidamo u gaar ah ma jirtaa shaqo ka dhaxaysa ciidamada qaranka iyo ciidamada maamul goboleedyada ama sindiin waxaan jecelahay inaan uga mahad celiyo walaalkay amaantii faraha badnayd ee noo tiriyay laakiin sidaan horey idinkugu sheegnay dadka intiisa badan haddii ay rumaysan yihiin waxaan jeclaan lahaa inaad ogaataan in madaxdiinu aysan ka xishoonayn inay shacbiga la wadaagaan xanuunada ay tirsanayaan. waxaan hadda ka imid oo aan jecelahay inaan raaligelin ka bixiyo waqtigii dheeraa ee aad fadhideen meesha ee aad iyo dulqaadkii dheeriga ahaa ee aad yacni intii aad isugayseen waxaan kasoo socday oo aan ku jiray idinkaa markhaati ka ahaa markii aan stuudiyaha telefishinka soo geliyay sida korkayga uu ahaa welina kobahayga ay u yaalaan. yacni ma aha ujeedada aan u samaynayno waxaa naloo sheegay haddii aan nahay laamaha amniga in cisbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho qaarkood ay ka baxeen geedkan loo yaqaano keligii noolaha oo cagaarka badan oo dadkana aan waxba tarin khatarna ay gelinayaan ama ku yihiin amniga ay ku yihiin. waxaana la soo gaarsiiyey dadka isticmaala muqaadaraadka in ay ku dhuntaan si loo cirib tiro. waxaan saakay saacadda markay ahayd 7:00 subaxnimo ilaa saacaddii aan stuudiyaha soo gelinay ka shaqaynaynay aniga iyo xildhibaan ka tirsan
golaha deegaanka ee magaalada Espoo ee dalka Finland oo loo yaqaano Cabdiraxmaan Maxamuud Cali Cabdiraxmaan Jimi oo muddo gaaban hadda halkan jooga laakiin isaga awoodi waayay inuu ila yimaado halkan waxaan ballan qaadnay oo aad ka arki doontaan Facebook-ga aan leeyahay tan iyo saaka shaqadii aan ku jirnay waxaan cirib tirnay ama baabi'inay inta badan ama ka badan 50% wixii geedaha loo yaqaano geed yahuudka ee ka baxay gudaha cisbitaalka Lasareti ee magaalada Muqdisho waxaad la socoteen in toddobaadyo ka hor ay cabasho ka timid dadka ku dhaqan deegaanada Kaaraan iyana ay ka soo banaan baxeen iyaga oo wax ka tabanaya burcad dadka ay qaarmoodayaan inay qaraabo leeyihiin laakiin dhibaato ku haysay ciidankeena oo ka kooban ciidanka nabad sugidda Soomaaliya iyo booliisku waxaan isugu tagnay saldhigga degmada Kaaraan ma ii sheegi kartaan ruux Soomaaliyeed oo dhibaato loogu geystay wixii ka dambeeyay 21 bishii la soo dhaafay ilaa maanta degmo kasta oo ku taala dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan u xaqiijinaynaa marka aan leenahay dadka Soomaaliyeed waxaan u jeednaa anagu shaqo ku meelihiin qabyaalada siyaasadeed ee magaalooyinka ka dhalata mas'uuliyaddu waa wadaag haddii shacbigu ay la shaqeeyaan madaxdooda waxaa iman doonta in dalku uu guuleysto meesha uu joogana maanta uu horay uga socdo ciidanka ila socda ee banaanka taagan waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay ee kan shacbiga Soomaaliyeed waxaan biyo cad ahayn oo ay cabeen ma jirto tan iyo saakay waxaan weli u taaganahay sidii nolol ka doorantan maanta shacbiga Soomaaliyeed ay haystaan loo gaari lahaa waxaan jecelahay inaan idin xusuusiyo xildhibaankan aan idin sheegay ee ka yimid dalka Finland Cabdiraxmaan Maxamuud Cali oo golaha deegaanka magaalada ka soo jeeda wuxuu ballan qaaday goob ay ku cibaadaystaan waxaa jirta dhalinyaro yaryar oo qaarkood ay dhimir kale yihiin oo ku jira cisbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho hadda sida cisbitaalka Lasareti ee magaalada Muqdisho oo kale oo 100 gaaraysa qaar muqaadaraadka ay waxyeello u geysteen wuxuu ballan qaaday markii aan doraata booqasho ku tagnay cisbitaalkuna uu noo soo gudbiyay in amni darro ay ka iman karto geedaha meesha ka baxay maanta annaga oo gacan ka helayna maamulka gobolka Banaadir waxaan qabanay in ka badan 50% shaqadii aan ka ballan qaadnay in cisbitaalka oo qabanayna sidoo kale wuxuu isna ballan qaaday in masjid goobaha rabbi lagu caabudo ee Ilaahay lagu baryo in ruuxa ama xabsi ha ku jiro ama guri xanaano waxaan ula jeedaa goobaha qofku marka uu xanuunsanayo la dhigo marka waxaan idin xaqiijinayaa waxaan u adeegaynaa inay idinkay aad tihiin waa wadaynaa haddii aan iskaashanada waxaan meel ka fiican inaan gaari doono haddii Ilaahay agaasime wada shaqeyn ma jirtaa dhanka amniga oo ka dhaxaysa maamul goboleedyada iyo waxaa taagan iyo dawladda dhexe waa maasan yahay Casmaan Mukhtaar su'aasha uu weydiiyay runtii hay'adaha amnigu meel walba way joogaan waxay leeyihiin heer federaal iyo heer dawlad goboleed intaba waa leeyihiin dhammaanna waa shaqeeyaan haddii aan lahayd ciidamada federaalka ah iyo haddii aan lahayd ciidamada heer dawlad goboleed oo meelaha kala duwan ay joogaan dhammaantood shaqo fiican ayaa ka dhaxaysa waxay dhammaan hoos yimaadaan wasaaradda amniga ayaa madax u ah marka wasaaradaha dawlad goboleedna waa jiraan shaqadooda ayagana wataan hooso dhammaan kor oo iskaga xirnaa marka taas waa taas sida uu sheegay afayeenka walaalka Cabdicasiis runtii gurmad ciidanka markii la tababarayo waxaa loo tababaraa inay sameeyaan gurmad u sameeyaan shacabka Soomaaliyeed waxaa loo tababaraa inay masiibada ka hortagaan waxaa loo tababaraa inay nafta badbaadiyaan waxaa loo tababaraa ciidanka inay gargaar u fidiyaan shacabka Soomaaliyeed marka qayb ay ka runtii shaqada oo maanta walaalka Cabdicasiis iyo muxuu ahaa xildhibaanku ay qabteen waa qayb kamid ah badbaadinta iyo horumarinta shacabka ama nadaafadda ayaa qayb ka ah inay ciribtiraan su-aasha ugu dambaysa inaan dhiibaan jeclahay waqtigaa noo saamaxayn inaan barnaamijka aynu arrimaha iyo howlaha quruxda badan ee socdaan kaga hadalno maalmo kale aan siin doonaa Cabdicasiis xildhibaan haye yarkaasaan jeclahay inaan siiyo su-aasha ugu dambayso ee ku aadan barnaamijka haye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحاوي عبد الليف إبراهيم أحمد أرضي كتير سمعنا جامعة جزيرة يونيفرسيتي أو كبرت كلية بيرها مركا كلية وحاربي وحسلامة يورتا دمان صومالي كيبل iyo shaqaalayaasheeda tagaxigtan waxa u mahad celinaya xildhibaan Cabdicasiis ama afayeenka wasaaradda amniga
iyo maamo Faaduma iyo xildhibaanka agaasimaha marka waxaan rabay hal su'aal iyo hal micnaha oo la talin inaan ka dhiibto su-aasha aan weydiinayo waxay tahay su-aasha saddexdiina micnaha waa idin khusaysaa marka ma jirtaa xiriir micnaha ka dhexeeya dhammaan degmooyinka waxaa ogsoonahay micnaha degmooyinka qaar in qaraxyo iyo waxyaabo saas la soo geliyo degmada kale oo dariskeeda oo kale example aysan ka warqabin marka ma jiraa xiriir ka dhexeeyo dhammaan degmooyinka laamaha amniga su-aasha labaad mid la talinta waxaa idin siinaya waxay tahay dhammaan horta 8 sano ugu dambeysay Soomaaliya micnaha amniga uu ka duwan yahay 10 sano la soo dhaafay ama burburka intaan ku guda jirnay 8 the last 8 years waxa waaye aad oo micnaha amniga uu fiicnay marka waxaan ku amaanaa dawladda Soomaaliya in sanadkan uu yahay ama dawladdan ay tahay dawladda micnaha ugu wanaagsan su-aasha kale aan jeclahay inaan siiyo yarkaas kale haye su-aalaha hal mar aan isku xirno waqtiga ayaa inoo saamaxayna su'aalo badan bixino haye markuu wareysa assalaamu calaykum marka waxaan salaamayaa qof waliba oo title lah iyo marsharafka meesha soo qayb gashay maanta waxaan rabaa su'aal ama tala bixin mid aan ugu weydiiyo jarnaalkii hor fadhisa maamo Faaduma ma jirtaa qaab ama ardayga markuu dugsi sare oo yahay jaamacadda oo gudbin ma jirtaa ciidamada booliska inay marsiiyaan inuu boolis noqdo dabadeed oo noqdo heer jaamacad u gudbo si uu saacido qofka markuu tagayo jaamacadda asigoo sharciga og wadada markuu maray ninka dhalinyarada oo dugsi sare ka soo baxay inuu waxaan qaldan yihiin inay wax saxan yihiin asoo kale og marka ma jirtaa dhalinyaro dugsi sare ka baxday intaysan jaamacad fadhiisanin boolis mara haddii jirtana sidee u sameysaan ma santiin marka su-aasha hore biciidan ku siinaa su-aasha kale waa u soo laaban doonaa waxaan idin xaqiijinayaa mar kale maadaama barnaamijka gabagaba uu yahay waqtigii salaadana uu dhow yahay in laamaha amniga heer federaal iyo heer maamul goboleed dhammaantood xiriir inay leeyihiin waxaad la socotaan sanadkii tegay nin ka soo baxsaday Puntland in magaalada Kismaayo ciidanka booliska ee magaalada Kismaayo ay soo qabteen kadibna ay u soo gacan geliyeen ciidamada halkii uu dambiga ka soo galay degmooyinka magaalada Muqdisho iyo guud ahaan degmooyinka hoos yimaada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan rabaa inaad ogaataan in ay jiraan dad Soomaaliyeed oo ku labisan dareyska ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ha ahaadeen ciidanka militariga Soomaaliya ha ahaadeen ciidanka ilaalada xabsiyada kuwa booliska iyo nabad sugidda dhammaantood inay joogaan wax nooga qarsoon ma jiraan xiriir ma leeyihiin ha xiriir waa leenahay annaga iyo degmooyinka guud ahaan ku yaala gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliya degmooyinka hodan iyo howlwadaag xiriir ma leeyihiin ha waa leeyihiin maxaa jira dadkaas dhex socda marqaataadna ka tihiin intiina meesha fadhida waxaad ka kala timaadeen degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Banaadir dhinaca ku aadan waxaa ka jawaabi doontaa ardaydu ay ka baxaan dugsiga sare intaysan jaamacadda gaarin tababaro ma siisaan ma jiraan tababaro bixisaan horta anaga waxaan ku qaadanaa dugsi sare markaan qaadano imtixaanaa laga qaadaa waxaa la geeyaa akademiyada General Kahiye markaas haddana waxaan u qaadanaa grade-grade loo imtixaan looga sii qaadaa qoladii xoogaa loo maleynaya inay sareyso waxbarashadooda waxaa loo diraa Suudaan Kampala Ethiopia intaasaa u kala dirnaa ugu dambeyn waxaa ku dirleed halkaasoo jaamacadooda ku dhamaystaan haddii aan ku daro su-aashii Cabdullaiif intaan runtii xiriirka degmooyinka aad u fiican yahay saa ka warqabto booqasho ugu dambeyso madaxweynaha qaranka uu soo maray dhammaan gobollo badan ama laba dowladood aan dhaho Puntland iyo Hirshabelle aan dhaho Galmudug inta degmo uu soo maray dareemi kartiin intaaba xiriir baa ka dhaxeeyay tusaale marka dhammaan degmooyinka Soomaaliya oo dhan xiriir baa ka dhaxeeya qaasatan degmooyinka oo ka kooban degmo ka kooban 4 waax ilaa laan iyo diris ilaa Tabeelle hay'adaha amniga waa ku dhex jiraan
tabeelle iyo deris iyo waax iyo laan dhammaanba hay'adaha amnigu xiriir fiican ayay la leeyihiin waa la shaqeeyaan bulshada deriskaas derisaynta ay qayb ku yihiin si marka isku xirka loo sameeyo bulshada ayay qayb ka tahay in muxuunaha ay la shaqeeyaan hay'adaha amnigu dhammaan qayb ka mid ah waaxda arrimaha bulshada ayaa qaabilsan hawshaas inay isku xirto dhammaan shacabka Soomaaliyeed deegaanada degan haday aan leedahay gobol heer degmo heer laan heer tabeel heer deris dhammaan hay'adaha amnigu saas haday aan leedahay booliis iyo nabad sugidba iyo inta kale baa ku dhex jira marka runtii xiriir fiican ay leeyihiin dhammaan Soomaaliya oo dhan bixi ayaan leenahay waa maasantahay guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeenu ka hadlaynay amniga waxaan u mahadcelinayaa afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis xildhibaan iyo weliba sidoo kale gaashaanle sare Faado Maneero iyo weliba agaasimaha wasaaradda amniga Cabdullaahi Faarax waa guud ahaan bahdii oo isku duuban oo leh inta barnaamij midkaan lamid ah aynu kulmayno sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh